wararka ciyaaraha inuu ku jirnaayo markana kubadda cagta aad ayaa Soomaaliya looga xiiseeyaa wiilashiisu waxay u baahan yihiin kubad iyo in ay helaan meel banaan oo kaliya si ay ugu baashaalaan ama ugu ciyaaraan laakiin dhaqan ahaan marka la eego gabdhaha Soomaaliyeed laguma yaqaano ciyaarta kubadda cagta Ifraax Mahad Xasan waa gabar 18 jira oo kubadda cagta ciyaarta Ifraax waxay ku hamidaa inay xidig weyn oo kubadda cagta ay noqoto BBC-da ayay ugu warantay magaalada Muqdisho jacaylka ay u qabto kubadda inuu isma dhihin gabar aad tahay banooni ma ciyaari kartid maxaa yeelay gabar walba wax walba ay qabsan kartaa anigoo gabar ah waxaan aaminsanahay boqolkiiba 90 inaan ka fiicanahay wiilasha iyo gabdhaha qaarkood haddii la fiiriyo laakiin ma aaminsani gabar wax ma qabsan karto magacaygu waa Ifraax Mahad Xasan naanaysteeduna waa Ifaan waxaan u ciyaaraa kooxda Golden Galley maalin walbana waxaan imaadaa garoonkan si aan ugu aalmaysteeno marka diiniyan ay dhaqan ahaan marka la dhaho aan horta diinteeda wax qaldan kuma sameeyay laakiin dhaqan ahaan marka laga hadlo Soomaalida inta badan waxay dhahdaa gabdhaha ma fiicno inay ciyaaraan banooni laakiin diinta markay tahay aan diinteeda wax qaldan kuma sameeyay mana diidan inaan islaam ahay laakiin waa aaminsanahay inaan ciyaari karo hadaan is asturaayo horta hadaa gabar ahay kaliya jikada inaan ku jiro oo ragga aan wax u kariyo ama guursado ilmo dhala kaliya ma ahan wax walba waa qabsan karaa wallahi qaarna way igu qoslaan qaarna waxay dhahaa ma ciyaari kartid see u ciyaare adama anaga banooni noo bixi karo qaar iyo sano waa arkaa oo idhaho ma ciyaari kartid mana sameyn kartid markay arkaan kadibna qaar waxaan arkaa idhahayo dad badan ka fiican tahay waxaa arkaa wax fiican koos banooniga waa almiito jirka iyo maxallahay almiitada nasidabo gabdheena Soomaaliyeed inta dhilaan wax fiican waxaa aragna wax fiican waxa nagu cusub laakiin waa ula qabsan doonaa waana fahmi doonaa banooniga inta gabdhaha noo ciyaaraan wallahi xirfadeeda aad iyo aad u fiican tahay sababtoo ah hadii la fiiriyo wiilal qaar oo banooni la dheelo ay ka fiican tahay marka xirfadeeda aad ay u wanaagsan tahay wallahi horta dad badan oo aflagaadeenayo waa arkay Ifraax in badan isla dheelay marka dadka short way qaldan sababtoo ah kubadda dii ay fikrad weyd ka heesalayeen mar badan dad badan gabdho badan kubadda cagta adduunka dheelo marka hal qof oo madax soo taagay in la caayo aflagaadii waa qalad sababtoo ah qofkaas wuxuu rabaa kubadda inuu heer ka gaaro marka in la caayo waa qalad gabdho badan cabsana waa arkay laakiin ani ahaanteyda markaan iska hadlo alxamdulillah ma arkin qof ii hajabo xagga amnigana ma arkin qof idhaho waa ina iska dhaaftaa hadii la ii hajabi lahaa xitaa wallahi qofu ilaahay markii anigteeda ay gasho markaas ma dhimana wallahi hamigeyga koowaad wuxuu yahay inaan qaranka Soomaaliya matalo waxaan kaloo aad u sii jeclaan lahaa inaan ka qayb galo World Cup kale ciyaaryahanada aan taageero waa Marta oo ciyaarta Brazil waxaan kaloo aan jeclaan lahaa inaan noqdo xiddigta dunida insha Allah